بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر دوّد برنامج كنا قصوين كنا باشا وعن كسر قاعدنا دوّد برنامج قصوين runtii dhacay oo runtii aan u baahanahay si nolosheena inuu xoga bedelo qisada maanta waxay ku saabsan tahay sheekh la yiraahdo Abu Ishaq al-Huwayni ayaa wuxuu yiri waxaan soo boqday nin aanu saaxiib ahay ma soo boqday isagoo markaa murgaysan oo warwarsan baan u tagay buu yiri kadib waxaan ku iri buu yiri maxaa kugu dhacay maxaad la warwarsantay inta markaan weydiiyay wuxuu ugu jawaabay xaaskaygii ayaa xanuunsanaysa kadibna wuxuu bilaabay inuu ooyo waliba ooyin aad u weyn kadib anigu waan la yaabay buu yiri wuxuu la ooyaayo markuu dareemay inaan la yaabanayo wuxuu la ooyaayo ayuu wuxuu igu yiri buu yiri ninkii ma waxaad la yaabantay inaan ooyaayo xaaskaygaan u ooyaayo haddaad og tahay gabadhaas sida ay tahay wad yaabi lahayd wuxuu yiri gabadhan waxa ay siiyay aabaheed anigu nin faqiir aan ahay buu yiri dhaqaale ma haysto aabaheed waa maal qabeen kadib markuu arkay amaanadeeda iyo wanaagayga ayuu inantiisii siiyey inantiisii markuu u siiyey ayaa waxay noqotay inan aad u qiimo badan bal waxaan galay buu janna ayaan galay wanaag baan dhex galay buu yiri waxa dhacday buu maalin maalimaha kamida ayaa aabaheed ii yeedhay markaas waxa uu yiri hebelow ilaahay ka cabso oo inanteeda ka daa hilibkan aad siinayso iyo khudrawaadka fuukadan aad siinayso ka daa oo waxaad siisaa fuul iyo muxuu ahay roodi iyo falafisi inta markii ugu yiri waan yaabay buu yiri anigoo yaaba ma guriga ku soo noqday xaaskaygii baan uga sheekay aabaheed wuxuu igu yiri baan uga sheekay markaan u sheegay ayay iyaduna iiga sheekaysay arinta mid ka sii layaab badan waxay ugu tiri waxay ii sheegtay waxay tiri markaan guriga aabahay aan tago ayaa waxa ay gabadhan samaysaa guriga aabaheed markay tagto aabaheed waa ninka maalqabeenka guriga aabaheed marka ay tagto ayaa waxay samaysaa waxa loo keenaa hilib iyo khudrawaad iyo alaab kala duwan baa loo keenaa markaas waxay tiraahdaa iga daaya alaabtan waan ka daalay ma cuni karo isiya fuul iyo roodi iyo falafel isiya kuwaas aan muddo arag wuxuu yiri arinta waxa ay ka sheekanaysaa xaaskayga ayaa ii sheegaysa oo tilmaamaysa guriga aabaheed markay tagto inay qaabka u dhaqanto markii sida reerka ay ku tiraahdo wax kale uma sameynayso waxa u sameynaysaa inay reerka dareensiiso ninka qaba inuu si wanaagsan u maamusay oo wax fiican uu siiyo oo cunto fiican uu siiyo ayay rabtaa reerkooda inay u sheegto waxay rabtaa gabadhani reerkooda inay ka dhistaan ninkan oo tirada ninka ay qabo nin aad u qiimo badan oo wax kasta ii siiyay ilaa hilibkii aan iyo muxaaya cuntada aan ka daalay laakiin se wuxuu yiri xaqiiqadu waxay tahay gabadha sidaa leh hilib ma aragtaba labadii bilood hal mar baan hilib siyaa buu yiri sababtoo nin faqiir aan ahay buu yiri wax la waxaan haystaa ma jiro buu yiri marka waxa cuntadeeda caadiga waxa weeyaan buu yiri waa fuulka iyo roodhida falafilka weeyaan sababtoo faqiir baan ahay ma haysta buu yiri hilib waxaan ku soo iibiyo laakiin xaaskaygu si reerkooda iga dhisto ayaa waxay u sheegtaa inaan cunto fiican siiyo inay ka daashay hilibkii oo markaas uu sameeyo ay muxuu ahaayay ay siiso muxuu ahaa oo ay muxuu rabto markaa fulinay cunto wuxuu xaaskaygu intaas oo kaliya ma sameysay waxa ka badan bil cibaadada iyo qiyaamul leylka iyo soonkeeda hadaad aragto sheekhow wad yaabisaa biyir markaa wuxuu ku yiri sheekhi waxa aniga iga oohaysiinaya waa wanaaga aan xaaskayga ku arkay xaaskaygii faqriga igula noolayd waxba aan siinayn oo dadka kale markay la joogtay reerkooda ka dhigaysa inaan ahay ragga ninka ugu fiican
arrimahaasoo dhan bay xaaskaygu samaysaa miyaanay markaa noqonayn inaan ka murugoodo oonu oo imaanay noqonayn sheekhiibaa wuxuu yidhi intuu madaxa lulay waa run buu yidhi gabadha noocaasa waa gabadh runtii loo murgoodoo laga ooyo dabada qisadan waxay ku saabsan tahay dumarka qaar baa jira aad u qiimo badan oo adigoo rafaad ku nool adigoo faqiir ah laga yaabo inay waxa u dulqaadato oy wanaag badan kuu samayso oo dhinac walba ay kaa dhisto laakiinse waxaa laga rabaa adigana maalintuu ilaahay xaaladaada wax ka bedelo oo faqiirnimada ka baxdo oo ilaahay dhaqaale ku soo geliyo adiguna wanaag inaad ugu abaalgusho inaad wanaag ugu abaalguddo ayaa adigana laga rabaa oo sida ninkaasi xaaskaaga aad u murgooto ka xumaato haddii dhibaato soo gaadho waxaad u qaban kartaan aad u qabato qisada intaasaan ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu